akhyari waa mar kale iyo cashirkeennii aan ku baranaynay xirfadaha cusub ee Excel, MS Excel. Marka halkan waxaan ku baran doonaa cashirkan 5 siyaabood oo loo nadiifiyo xogta ku qoran MS Excel loo nadiifiyo. Waa marka data analysis waxaad sameynayso qaabka loo nadiifiyo 5 toomaan ka tusaya. Okay, halkaas ku bilaabaya halkan waxaa ku qoran siyaabo badan oo loo nadiifiyo jirta marka 5 manaada ku tusinaya. Okay, halkan hadaad fiiriso waxaa ku qoran farmaajo kusoo dhawo Hargeysa, laakiin qaybta dambe fiiri space dhan oo ka dambeeyo inuu ka dambeeyo lama rabo. Xagga sidoo kale space ka horeeya inta space dheer u dhaxeeya ereyadaas inta sidoo kale marka waxaan rabnaa inaan ka tafatirno oo aan ka jirno. Marka waxaan sameynaa halkan aqal keensanaya horaan u galeyna cashir equal ayaan taabanaya. Equal markaan taabto waxaan qorayaa ereyga trim markaan qoro trim waxaa wax la simo oo sida mataqaanaa timaha marka la jarayo maqaska lagu jarayo oo kale lagu simo. Qaacidadii marka ereyga trim markaad qorto halkan uu kugu soo qoraya ereyga macnihiisana halkaas uu sheegayaa. ereyga macnihiisu afqalaada Ingiriis halkaas uu sheegaya dad taqaano ku anfacaysa. Marka intaas markaad joogto waxaad taabanaysaa tab markaad taabatid waa keyboard tab meel ku qoran taabanaysaa halkan uu qaabkan uu kugu sameynayaan halkan taabanaya halka markaad taabto waxaan isla taabanayaa shift iyo everence isla taabanaya bil xir uu sameynaya enter ayaan dhig enter markaan dhawaad aragtaa sida quruxsan ka dhig wax space labada dhinac ka jira malaha. halkaas aan taabanaya meeshaas fill handle ka qabani dhab mooskayga qabanaan jiida halkan dhigaa waxa sida quruxsan oo kaga dhigaya. marka sidaas u nidaamsanaysa qoraalkaaga. Okay, halkan ma wadana halkan markaad imaato inta waxaa kugu qoran arday 7 ah oo u fariistay imtixaan maadooyinka kala ah xisaab, science iyo English iyo kala fariisteen. marka laakiin waxa ku muuqdo in ardayda qaarkooda ayna u qorneen maadooyinka ay ka keeneen maadooyinka qaar. marka sidan oo kale kan oo wada qoran yihiin saddexdii maado wada qoran yihiin laakiin kan labaad halkan wax loogu qorno science wax loogu qorno kana sidoo kale xisaab wax loogu qorno xasan sidoo kale kan wax loogu qorno marka processkaas ayaa banaan. halkan wax qoran marka wixii meelaha banaan rabnaa inaan buuxino liiskan hadduu ahaan lahaa kumaan kun ka war oo ardayda qaarkood ay kasoo qayb galeen. marka adiga waxaad rabtaa datagii informationkii iyo maxay ahayd buundooyinka ardayda ay keeneen inaad dabagal ku samayso ogaato waqtiyaan maadooyinka ugu wada fariisanin iyo sababihii waxay aad ogaatay intaada reportka gudbinin. marka data analysis sameynaysaa data analysis intaan la gaarinba waxaana samaysaa inaan nadiifisaa rabaa datakaaga. marka information ka maqan informationkan maxay inta la maqan maxay inta lagu dhihi lahaa oo booskaaga ku dhihi lahaa waxaa hadda iska sii hubsan. marka waxaan fiirinaynaa boosaskaas banaan inaan buuxino sababaha u banaan yihiin. marka waxaan sameynaynaa intaas waxaan sameynaynaa highlight ayaan leenahay. okay saa highlight garanaynaa. okay arrinta hoosaan iska highlight garaysan karnaa inta korana waxaan igu gelin so basically this intana highlight garaynayna inta marka highlight garayno ama waa weliba halkan qaybtan hore bisa iska highlight garaysanaya intana xisaabaadka ku jiro inta waxay okay perfect. intaas waxaan sameynayaa marka waxaan taabanayaa find select. okay find select halkaas taabanayaa markaan taabto waxa soo baxaysa go to special ka taabanaya. markaan taabto halkan waxaa ku qoran blanks ka raadi blanks ereygan fiir blanks waxaa meel eber weeyaan ya good ever wax ku jiro Excel blanks halkan aan tuujina markaan tuujiyo okay markaan dhaho Excel sidaas uu dooranaya dhammaan boosaska banaanaa oo dhan hataa hadduu documentiga malaayiin uu yahay uu taladan yahay inta boos oo banaan oo dhan uu dhammaantooda uu dooranaya. markuu sidaa u doorto uu select gareeyo aad marka waxaad rabtaa inaad haddana aad ka wada buuxiso sababaha ay mataqaanaa ay eber u yihiin oo faaruq u yihiin saleska. marka sababta ugu dhow hadaan maxaa leenahay waxa inuu si ka soo qayb gelin ardayga haday meesha waxba ugu qoraan macnaheedu waxa way science maadada ka soo qayb gelin adaygiis ka soo qayb gelin imtixaankaas marka ma soo qayb gelin ugu qorayna. marka Excel wanaaga uu muxuu ahaa waxyaabaha kale uu leeyahay ku wanaagsan yahay waxa waaye intaas markaad marayso halkan oo kaliya ayaa waxaad ku qoraysaa selka u horeeya kaliya waxaad ku qoraysaa sababta dhammaan kuma wada galayaan hal mar wada galaya halkan bis ku qoraya asagoo sida u muuqdaan qoraalka ku bilaab waxaan leeyahay kama soo qayb gelin okay kama soo qayb gelin ayaa qoraya. marka inta qoro marka enter ma dhahayo waxaan dhahaa control aan taabana enter leeyahay hal mar wada galayaan waxay dhan update u noqdayaan xitaa hadduu document weyn la hoosta joogo soodaas. marka tricky loo fiican weeyaan waa xirfad macaan. halkaas ma wadana xaggan sidoo kale waxaa ku qoran student xisaab science English ku qoran arday imtixaan u fariisteen ardaydan
laba iyo tobanka arday oo imtixaan u fadhiistay ardayda magacooda halkan ku qoran yahay haddana buundooyinka ka kala keeneen maadooyinka xisaabta sayniska iyo ingiriiska okay marka waxaan sameynaynaa ka saar qoraalka soo noqnoqdaha ku qoran waxaa dhici karta markaad liiskan diyaarinaysa inaad qof laba jeer aad qortay buundadiisana aad qortay wixiisa dhan aad qortay marka qof kasta kala rabaa inaad ogaataad baarto inayba jiraan qortay intaad gudbeen okay qof aad laba jeer qortay saddex jeer aad qortay inaad ogaataa aad rabtaa kadibna aad saarto meesha ka saarto marka qaabka lagu ogaanayo laba qaab lagu ogaanayo mid waa conditional formatting halka qoran ku ogaanaya waxaan sameynayna waxaan dhan highlight gareynayna okay highlight gareynayna kulligooda highlight gareyn karnaa ama waxaana waxaa iska wada highlight gareynayna no problem iska highlight gareynayna okay marka highlight gareyn waxaan leenahay conditional formatting aan taabanayna highlight cells aan leenahay halkan aan imaanayna ada hoos aan baa duplicate cells aan duplicate waxaa waaye duplicate values kasoo lalaab waxaa waaye qoraalka soo noqnoqdo wey click aan dhahay click markaan dhaho kulli fiir color guduudan ii saaraya okay waane color guduudan soo saaraya maantooda ka wixii soo noqnoqda tira ahaan wixii tira soo noqnoqda magac xitaa wixii soo noqnoqda maymuna laba jeer soo noqotay maxamed sidoo kale okay sidaasaa lagu ogaan karaa marka xabad u tirtiri kartaa halala u tiri kartaa ma u sixi kartaa laakiin qarash waay way fogtahay kaban liiska kuman kun ahaan loo badnaan lahaa qarash weeyaan marka waxaan leeyahay control z aan leeyahay kadib aan noqonayaa undo markaan dhaho qaabka kale taa tusinaya qaabka kale taa tusinaya waxaa waaye saasada highlight gareynaysaa sidoo kale qaabka lagu tirtiraya waa tirtirayna data meesha ka saareen halkan tagayna data buttonkaas taabana marka buttonka halkan waxaa ku qoran waxaa ku yaala remove duplicate calaamadaas aan tuujina markaan tuujiyo halkan waan hubinayaa inay tahay kuwa qore ugu qoran halkaa igu qoran row column headerska student xisaab science diyaar waa halkan inay ku jegaraysanto sidaas la rabaa hadday jegarayn weyso haddaad jegarayn weyso excel wuxuu sameynayaa waxyaabaha soo noqnoqday uu raadinayo ku darayaa intan maxaa laga yaabaa marka inuu ku sooce ku dhaho oo liiskan dhaba kaa tirtiro marka inay ku jegarato waa la rabaa jegaraysnaato sidaas ahaato haddaad jegaraysneen adigu jegaraya marka waxaan hadda click haddaan dhaho waxaa waaye wixii soo noqda wuu tiraya uma arkayna dib uma arkayna marka waxaan leenahay okay markaas in excel boxkana meesha kusoo saaraya boxka waxaa ku qoran one duplicate values found and removed 11 unique values remain kusoo qoraya macnaha hal qoraal oo soo noqnoqdaa la helay kaas waa la tirtiray hal qoraal oo soo noqnoqdaa la helay laba jeer soo noqday waana la tiray hadda waxaa kusoo hartay 11 unique values ayaa kusoo haru leeyahay macnaa 11 qoraal waan isku ekeen baa kusoo haray okay thank you waa mahadsantahay okay halkaan ka taabanaya qaybtu ka tirtirana waa tabagaran kartaa hataa halkaa faaruq ka tirtir marka wuxuu hadday waan arkayna waxaa markaan conditional format isticmaalo magacyada soo noqday waxaa maxamed iyo maymuna la kacay hadda maymuna waa maqan tahay okay maymuna maqan tahay laakiin maxamed wuu qoranya labada maxamed ku jira marka sababtan inaan ogaano muhiim waaye marka inaan ogaano wuxuu maymuna u tirtiray iyo kuna u tirin inaan ogaano waaye sababtu waxa weeyaan aan ku celiyo control z control z markaan dhaho formatting aan ku celinaya qaybta formatting aan ku celinaya halkaas tagaya sida fancy waa ka halka markaan imaado fiir maxamed iyo marka aan fiirino maymuna wixii loo tiri maxamed loo tiri waaye sababtu waa tan maxamed maymuna fiirino maymuna fiiriya maymuna magac waa magac soo noqnoqda isku wadeegay magacaasi qoraal si isku sii u qoray tirada xisaabta ingiriis 78 intana 78 53 86 war meel kasta isaga ekay dadawoo tuuray marka hal xabo kusoo reebay hal xabo kaa tirtiray hal xabo kusoo reebay maxamed fiiri marka maxamed sax waa labada magac soo wada isku mid qoray halkan 69 intana 68 ma tiray marka oo kala duwan yahay maxamed waxaa waa kala duwan yahay markii 91 lix oo kala duwan marka laba maxamed oo kala inay yihiin adagta soo sidaas u sameynaya excel control z marka okay marka qaabkaas uu ku tirtirayaa excel uu ku tirtirayaa okay thank you marka next saada madaxigta waxaa waaye magacyadan sida halkan ku qoran fiir magacyada uppercase magacyadan aan baranaynaa sida loo qoro looga xarfo waaweyn looga dhigo marna xarfo yaryar marna sida rasmiga loo qoro aan ugu qorayna qoraal u bedel far waaweyn iyo mid yaryar iyo mid saxda okay halkan waxaan leenahay marka halkan qalin gaysana aan leeyahay abba qaybtaas kore waxaa ku qoran abbadaas ku qoran oo UPP markaa qoran tab markaa taabka xasan markaan tuujiyo waxaan leeyahay shift everest la qabanaya bil xir iyo sameeyna enter markaan saas igu soo qoray halka xarfo waaweyn ka wada dhigay halkan meeshaas yar madow
qalin ku tusinaya balaas madow markuu qalin isku bedelo dhab aan siin waan jiida halkan geena okay dhamaantood wuxuu ka wada dhigay xarfo waaweyn ka dhigay intana xarfo yaryar ka rabaa equal ana qaybtan kore lower aan qora lower markaan qoro isoo baxaysa waa kaa iyo macnaheeda tab aan taabanaa tab markaan taabto qaabkaas uu noqonaya qaabka markuu noqdo waxaan taabanaya xasan kik magacaas aan bedeli rabo then waxaan qabtay shift iyo waxaan isla taabanaya eber shift iyo markaan isla taabto inta aan dhahay inta markaan dhaho qaabkaas igu bedela xaraf yaryar ka dhiga halkan aan qabanaya meesha sidoo kale halkan aan geenaya xarfihi dhan yaryar ka dhiga xataa kuwii waaweyn oo ka yaryar ka dhiga inta marka waxaa waye sida rasmiga magacyada biniaadanka loo qoro weyaan xaala magaca dhan sida loo qoro rasmiga equal aan dhahay erigaas aan qore proper markaan qoro isoo baxaysa waatan say usoo baxday macnaheeda waxaan leeyahay tab markaan ka dhigi markaan dhaho then waxaan taabanaya xasan then belford shift iyo waxaan isla taabanaya iyo eber inter aan dhaha inter markaan dhaho fara badan marka waxaa waaye xarafka koowaad uu magaca ku bilaado weyneyna oo xarafka ka dhigaya inta kale kuwa yareeba ka dhiga waana sida rasmiga magacyada loo qoro marka halkana qabanaya soo jiidaya kana keenaya halkaas okay diyaar waa bedela marka qaabkaas loo bedela cashirka qaybta u dambeysa waa halkan marka tan mid xiisa badan okay halkan waxaa kugu qoran ciwaan inta xaafad magaalo dalka okay waxaa lagu siiyey xogtan oo kale dadaas su-aala lasoo weydiiyey xaafadaha ay degan yihiin marka ciwaankooday sheegeen meelahay ku qoran waxaa waxay dheheen kale waxaan deganahay muqdisho kasii degay soomaaliya kasii deganahay isliyaan deganahay nairobi kasii deganahay kenya kasii deganahay okay warta nabadda babab waa ka nooca marka waa ciwaankoodii meesha laga helayo degan yihiin ku nool yihiin marka marka kala qaybsan yihiin waad aragtaa waxaa kala qaybinayo hakadyo kala qaybinayo magacyada ya hakadyo kala qaybinayo marka adiga data analysis markaa samaynayso warkan noocan kuma anfaco kan waxaa la rabaa datakaaga si nidaam clean oo nadiif ah inaad u qortid marka waxaa leedahay halkan waxaan ku qoranaya xaafadda halka ku qoranaya locality-ga iyo intana magaalada halkana dalkan ku qoranaya marka waxaan rabaa xaafadda taleex oo kale ina halkan gashaa rabaa muqdisho oo caasimadda halkan ina gashaa rabaa dalkan halkaa inu gala okay si marka oo nidaam oo qaacidaan ku gelinaya meesha iskama gelinaya xabad hal uma soo gelinaya meesha kale macquul maaha hal uma soo gelin karo so what I'll do waxaan sameynaya marka halka waa highlight gareynaya intana highlight gareynaya kan highlight garey data waxaan isticmaal qaabka text to column si aad xogta ugu dhajiso meel saxa marka waxaan leeyahay halkan aan taabanaya data aan taabanaya sidoo kale data buttonkaas aan taabanaya then halkan waxaa ku qoran text to column exactly waxaa ku qoran text to column aan tuujina markaan tuujiyo alaabtan ay soo baxayso boxkana soo baxa boxka markuu soo baxo halkan waxaa ku qoran laba option aan ku qoran optionka koowaad delimited kan kalena waxaa waaye fixed width okay marka fixed width waxaa la dhahaa marka qoraalka uusan waxba u dhexeeynin oo si toos iskugu wada qoran yahay wax u dhexeeya space iyo xataa waxba u dhigay isku taraarax laakiin markuu kala qaybsan yahay delimited ka marka taasaan anaga qaadanaynaa karagtigeena delimited ana kuweena maxay delimited u yihiin dee hakadkaasa kala qaybiyo hakadyadaasa kala qaybiyo delimited marka waxaan leeyahay next halkaasa tuujinaa next markaan tuujiyo I'm very sorry aan ku celinaya okay markaan siiye next aan tuujinaa next markaan tuujiyo marka halkan waxaan ka dooranayaa waxa kala qaybiyo ya delimitedke waxa uu yahay aan dooranaya semicolon miya comma miya space miya waxa kala qaybiyo comma kala qaybiyo waa hakadkaas doorana halkan markaan doorto halkan preview iga siinaya sida uu ekaani doono markaan bogo hawsha ya muxuu ahaa xogtan sida u ekaan doonto iyo halkan iga tusinaya qaabkaas u ekaanaysa okay marka waxaan leeyahay next markaan loo halka formatting yaraa laga rabaa anagu formatting mar raba because halkan waxaan ku qorra waa qoraalkana general iska qaadan karaa okay generalka hadda iti garaysanan faraha kaga qaadaya laakiin waxaan sameynayaa goobtan waxaan rabaa inaad sheegto meeshaad ku koobin rabto inaad sheegto waa inaad halka geyso markaan halkaan tuujinaya halkaan markaan tuujiyo saanay noqonaysa halkana qalinka geysana markaa qalin geyso halkaan tuujina haddana halkaan rabaa inaan ku koobiyaan leeyahay koobinaya okay laakiin laba camal ayay galaysa markiis waa tiraya ma rabo labaad hal xabas inuu igalaan rabo halkaas oo igalaya halkaa markuu igalo okay markaan dhaho waxaan finish dhamaystir walaa khayr badan ku wajana wuxuu dhahay there's already data here do you want to replace it wuxuu leeyahay waxaa meesha kusii jira waxaas dhega oo dhigan waxaas ya okayda ka taabo halkaa ka taabo maasantahay wuu kusoo gelinaa marka waa kana xaafadihii dhanba halkaas ku geliyay halkaas ku shubay ka buuxiyey magaalooyinkii halkaas ka buuxiyey ku shubay halkana halkaas ku buuxiyey
halkaasuu qaabkaasuu ku noqonaya marka qaab nadiif uu kusoo saaraya okay so cashirkeena halkaasuu ku egyahay waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen oo idin anfacay haddii aad cashirkan ku bogtay fadlan like saar beedkeena Soomaali subscribe gareena wixii talo iyo tusaalena comment ah xagga hoose noogu qoray videoga hoostiisa noogu qoro noogu reeb. Assalaamu calaykum.